subaxnimadii saaka waxaa dagaal ka dhex qarxay jabhadda uu hogaamiyo Kornel Care iyo ciidamada xukuumadda Somaliland. Dagaalkan ayaa ka bilowday buurta ay marto wadada Tabca kadib markii jabhaddan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ba hoygeedu ahaa buuraleyda waqooyi ee Cerigabo ay habeennimadii xalay toole ka daadegeen wadada Tabca oo ahayd halbowlaha kaliya ee xukuumaddu ka hortaagneyd inay fursad u helaan jabhaddaasi. hase yeeshee dagaalkan ayaa dadka deegaanka ahi soo sheegayaan in gaadiidka ciidamada dawladda xilligani laga hortaagan yahay inay helaan fursad ay buurta kaga daadegaan. waxaana sidoo kale dadka deegaankaasi soo sheegayaan inay jirto rasaasta hubka tiknikada ah laga adeegsanayo oo ay maqlayaan mararka qaarkoodna ay arkayaan qiiqa meelo rasaasta qaarkeed ku dhacayso. hase yeeshee ilaa hadda khasaaraha lama oga marka laga reebo warar aan weli cadayn oo sheegaya inay jirto dhaawac iyo dhimasho dagaalkan ka dhashay. waxaana wararku intaasi ku darayaan inay jiraan baabuurta dagaalka oo la kala gubay iyo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dhinaca kalena Kornel Care oo aan isku dayay inaan la xiriiro ayaa noo suurtagelin, waxaana dadka deegaanka oo aan dagaalkaasi kala xiriiray si aan xog uga helo ay noo sheegeen inay maqlayeen diryalka hubka waaweyn goobtana ay usii dhaafayeen ciidamada Somaliland. haddaba ugu horeyn waxa aan weydiiyey sida ay wax uga dhaceen buuraleyda Tabca Xero Mooli oo ah halka ay ciidamada Somaliland iyo jabhadda Care uu maanta dagaalku ku dhex maray. waxa weeyaan waa joognay anagu saaka shantii dagaalku ku qabsaday ilaa koob iyo toban kii uu socday laba meelood godka Tabca meel la yiraahdo godka dalool laga hoostiso meel awrgaab la yiraahdo baa laga shaqa dhufays qaatay. khasaaraha soo kala gaariga oo Somaliland gaari baa laga gubay. waa gaari tignika kuwa qalabaysana walada kalena khasaaraha gaari wuxuu ahaa laba gaari baa laga qabsaday. dhaawacyo yaryar way jiraan. khasaare wax kala gaaray inta baa la ognahay. aad iyo aad loo kacsantahay xaaladda aad iyo aad loo kacsantahay ama xoolii baa laga yar gudbiyo laga qaxiyay ama dadkii baa guriyihii dib uga guftay. waxa weeyaan aad baa dareenkoodu kacsan yahay dadka. si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa degan, waxaana labada dhinacba soo kala gaadhaya gurmud xoog leh iyadoo xilli waliba la filan karo inuu dagaalku dib u qarxo. ilaa haddana ma jiro wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Somaliland xilli uu gobolka ku sugan yahay taliyaha ciidamada militariga Somaliland Sareeye Gaas Nuux Taane. dhinaca kalena jabhadda Care ma jiro wax war ah oo ka soo baxay. arrintan ayaa kusoo beegmaysa waan iyo wada hadal xilli laga dhexwaday jabhadda Care iyo xukuumadda Somaliland, waxayna arrintani god ku ridaysaa rajadii laga qabay in nabadgelyo iyo xal waara laga gaadho jabhadda Care iyo ciidamada Somaliland. Saciid Muuse Faarax, Saciid Qurbaawi, warbaahinta Badcas TV, Cerigabo.